ها ما نولشي يدتك كلو دني هراي u socdaan laakiin 20 sano u dambeysay isagu xaq gadaal buu u socday saasuu isagu leeyahay ajaayib ninkaasi haye marka waa mid kamida iyana waxa jirtay laftirkeeda uun isla arrinka isla habeen xiliyadaas mar labaad oo nasir bal xagal kale ka eeg nolosha yar marka wuxuu yiri jaamacow wuxuu yiri markay gabalgaabka tahay guriga maran oo ay og tahay naftaydani oo gar leh culays gaar u ku yahay ayay moodii galbeed galbisay qorraxdii dhacdo habeen baa soo galo waxaan galay hawl kale miyaan gamaya hurdada waxaan galgashoon isrago furaashkayga oo galgalin gudbooni ma soobayaan ayaan iskiraangirsho garaadka mashquulisay xageen geediga u ah dantaydii waan gabay intaanan itaalka gabin garooma aan ku talay guushii rajada infishay gugii kalgacaylkumee galacda waagee subaxeed guduudkiya ka hore libdhadu ifkay soo ganto arlada guuluhu qurxiyay gamam ku ilaynaysaan galubnahay mahsanahay gawaana u taagnahay ilaa goormaanta loo jacaylka u gaardiya waqtiga gurguuraya xadhkaha igu giijiyay xubiga igu haadayo guclaha igu daalisay inteen cawa guuraya gadiinda boqolaya halkaas uu la maray markaana su'aalahaas aadka u faraha badan talow miyaa laga jawaabay baad leedahay dee mar khiyaal bay ahayd khiyaalku wuxuu ku fiican yahay waxba kaaga soo noqon maayaan waxbaad odhanaysaa hadday doonto canaan ha ahaato hadday doonto ammaan ha ahaato ma wax laga saxayo iyo wax laga khaldayo male arrimaha khiyaalkii waxay ku wanaagsan yihiin kuwa mararka qaarkood laakiin abwan maadaama indhaha suugaanyahanta uu furan yahay suugaanleyda indhahooda aad u furan yihiin jawaabtii ma ku dhex aragtaa bulshada way dhacdaa mararka qaar way dhacdaa laakiin hadda xusumayno waayahay halkaad nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhageysanaysaan 88.5 FM cjsr.com waayahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan 88.5 FM cjsr.com iyo baraheena bulshada madasha furan facebooka hadday ahaan lahayd youtube-ka iyo tiktok-ga cabdiraxmaan waa ku salaamaya wariye sare meel fog baad naga soo salaamaysaa magaalada inaadan joogin waan ogahay dhinaca facebooka sidoo kale cabdiraxiin bashiir cilmi calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaat akhyaaray weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii miida suugaanta abwan soo dhawow mar kale maxaan ku xijinaynaa baa tiri waxaan ku xijinaynaa jaamacow waxaa jirta waxa la yiraahdo dawladnimada ama hoggaan xumada Soomaalida haysata ma yara waxayna haysataa inta cimrigeenu jiro anon shakhsi gaar ah u socon waxa jira mid aan hoggaanka leexsa oo inaga janjeera aan ku yara taabtay bari hore adigaaba cidba ka tagaya haddaad hoggaan leexsan ka hadlayso cidaad ka tagaysa ma jiri doontee marka jaamaco wuxuu yidhi fikradtiis ah wiilkaysan tarin tulud waxay goyso taadana maqlayn oo talena aad ku tamar daashay turaanturo kufkiisuna dhibtay taranta soo boodo ninka adi laguu tirin hoohay nolol u toos weyne tusaalaha ekaynta aanoo togi abbaartayda waxaan tuduciyo mahmaaha oo taban u soo qaatay jidka sahanku tooreynaya waa tubtii hore ma taageerto waanadu dhegtii aan tixgelinayna cadowgiisa ruux toogayaa guul u tegi waaye taariikhihii hungoobiyo wuxuu eeday tacabkaagu kusii talax tag mooye haddaad toosi garan weydo waxaad guurtay 10 jeer adoo taagan meel qurahe tunka biraha kaasoo dhan adaa tumay dhammaantooda toobin aad u dhibto ku xidhay tumba iyo dhiila waxa lacagta laga tuujiyaa turuqyadaadaase abwan halkaa ii waaki waxaan wax yar inaan gadaal u noqdo waxaa tiri waxaad guurtay 10 jeer adoo taagan meel qura arrintaas jaamacow bini'aadamku sahanka sida caadiga ah waxa sahan lagu dayaa meesha cusub
aadan aqoon سبعة anigu waxaan qabaa waddada aan hayno waa tii awoowahay maray سبعة waa cajab ma ogtahay عجيب weliba haddana anna waxaan marayaa anoo sahana awoowahayna wuxuu maray sidoo kale isagoo oo sahana may la socotaa soomaalidu markaa waddada ay hayso meel sahan u baahan maha wadda ay yaqaanaan meeshay ku dhammaato bay haddana sahan ku dayeysaa kama duwanaan mashiinkan trainmeelka la yidhaha somaad arag nin ku orday xag u tegey mashiinkaasaan saarannahay intii muddo ahaydba marka jaamacu wuxuu ku leeyahay taariikhihii hungoobiyo wuxuu eeday tacabkaagu kusii dalxtag mooye haddaad toosi garan weydo waxaad guurtay 10 jeer adoo taagan meel qudhahe wuxuu yidhi tuska karinta jiirta aroor soo dultaxay caadka nacas moodi roob tegi ayaa dooxa 10 maale taariikhihii hungoobiyo wuxuu eeday tacabkaagu kusii talaxtag mooye haddaad toosi garan weydo waxaad guurtay 10 jeer adoo taagan meel qudhahe tunka biraha kaa suran adaa tumay dhammaantoode tuubin aad u dhiibto ku xidhay toomba iyo dhiile waxa lacagta laga tuujiyaa turuqyadaadaase raggan bohosha kaa tuuray ee tagay damiirkoodu badhkiin baa ku taageersan oo aad u badhitaara innagaa meesha geynay dhammaantood xaqiiqiin ninbaa maantadan iiga sheekeynayay wuxuu yidhi mooy oo madaxweynihii Kenya ahaa oo wasiirka biyaha oo Soomaaliya la socda gobolka Soomaalida yimid sax marka wixii ugu horeeyay oo ay Soomaalidu ka dacwoodeen waxay noqotay biyo la'aan marka wuxuu ku yiri ninkan waa kuma markaas ay waa wiilkii biyaha weydiinayay marka waayahay adiga ku taageersan waa qodob barkiin baa ku taageersan oo aad u baritaara marka ninka la yiraahdo jaamacu maaha kana xun iyo kana bedelnayo maaha macnuhu muhiimadda ugu weyn waxa weeye waddada aan hayno baa leexsanba marka si kasta haddaynu wax isugu shaandhayno waddada exit ba ma qaadanayna rest areahan fadhinaa highwaygan dib ugu soo laabanayna intaanan marka tixgale iyo hees iyo u gelin waxaan rabaa intaa waa la sheegayay waddada inay khaldan tahay maalan halasyada Soomaalida ay aadka u taqaanaan waxaa ka mid ah dowladnimada uma bislin marka in dowladnimada loo bislaado iyo jidkii loo marayayna waa la sheegaa in qabyaalada la tuuro mataqaanaa oo tacabkaadana ka mid ah suugaanta faraha badan oo dardaaranka tusaaleynta haddana meeshii lama dhaaf maxaa isdhaafsan baad isleedahay wax badan baa horta isdhaafsan horta muhiimaddu waxa weeye dadku intay isu yimaadaan oo iyaga oo aan wax kala tabanayn aan wax hagaajisanna ma yidhaahdaan marka la yimaado waa laisu yimaadaa wax waa la kala tabanaya taariikh baa laga sheekeeyaa shalay weeye waxaa la jooga maanta inay joogaan ogow mar haddii taariikh laga sheekeeyo maanta ma joogno gadaal baanu noqonnay arrintaa wixii aanu ka dhammayno maanta wixii inaga xumaano ma hagaajinayso xaqiiqiyan laba qof oo is hor fadhido oo wax kala haysataa ma jirto waa godobasho maaha wax laga wada hadlayo taariikha taa waxay ahayd in gaar looga wada hadlo maxaan hagaajisanaana in gaar looga wada hadlo laba baaba oon islahayn bay anaga ileeyihiin kolley shakhsiyan waxaan kaloo ku dari lahaa inta badan kuwii taariikhda xataa isku haystay oo wax hore oo la isku haystay qabay awood qaybsi bay ka hadlaan waaya waqti baana guraye waa runta maxaan kusoo xiraynaa maanta maadaama uma bislintaha laftirkeeda aynu hadda ka sheekeynaynay waxaanu leenahay adiga laba meelood wada fadhiye iskuma helay sidee labada geedka iyo kursiga mid ku ekow labadaa haddaad kala doorato haddii kursiga aad fadhido dee geedkii ha ku noqonin oo odayga ha u baahan wuxuu yidhi sangiya geeyadu waxay gaadiidka inoo ahayd intaan gaadhiga la baran gaddaas oo kale haddana waxay gudacdaaga iyo garaadadu talin jireen ugaaskuna gaan ahaa kalkii gaargaarka iyo hirkii goonigoonidee dadkayga u gacalayaal golihii haybsooca iyo geedkii xintanka iyo naci haddaad ku go'doonsan tahay guddoonkii dowladnimo gugeedii kuma dhalan duqay ku googoynaysiiyo siyaasi ku gagabiyey baad waqaa u geeraaraysood garweyn iyo badeel u tahay haddaadu inaanay geyin inaad u gumowdahayb garweeye ayaa ku dhacay inuu kala yeedho gole samuhu geedkuu ka baxo harkiisa waxaa goglada ninkii ka gar qaadan kara wuxuu gocdo ee dhibee hadduu gungunuusabku ruux ka guur 10 geedi
naftiisu waxay gob tahay gafkii laga sheegtay iyo qudhiisa wixii gubaba ninkii garbahooda sima waxaa gallad sheegan kara godku subaxii kadib waa habeenkii guri ahaa nimaan u xatooye gelin nimaan baqashadu gilgilin nimaan cabashada galgalan nimaan hoo lagu godlayn hankiisu nimaanu gabin ayaa dadka geesiya guddoonkuna dhalinyaro iyo gudboon oo kula gudboon buu yidhi jaamacow guddoonkuna dhalinyaro iyo gudboon oo kula gudboon ha aad baan runtii u jeclaystay waxaa gallad sheegan kara waxaa gallad sheegan kara godkuu subaxii kadib nimaan habeenkii guri ahaa nimaan u xatooye gelin isagoo dadka iska eegaya meeshii u dhow manuu lahaa ka leexda saaka marka haddaan bulsho ahaan u fiirinana waynu nahay inagoo dhan baa ah ninkii shalay naxday ee na oomiyey ee na dhacay maya waxa weeye ninkii ku lahaa yaan waxba la xadin hadduu isagu habeenkii xada ka waran maalintiina ku dhaho waxba ha xadin waa wareer ma ogtahay qabyaalada yaan la samayn habeenkiina odaygiisu la soo shiraya intuu u dhuunto ama odaygaaba loo keenayaa sida iminka dhacda isagu ma tago odaygaa la keenaa hadda ogow intu baabur yar loo diro baa la odhanayaa odaygii baa ku bahan laftirkaaga odaygii baa ku bahan adigana ha marka waa cajiib abwan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya runtii waktiga qaaliga ah halkaasaanu kasii wadaynaa insha allah waa diyaarinahay haye waayahay dhammaantiin halka aad nagala socotaan waa madasha furan barnaamijkii miidda suugaanta waxaa noogu marti ahaa abwaan sahl cabdullaahi buule xusuusihii iyo dardaaran kaleba uu isugu kaadan daray haddii eebaha wada yidhahdo toddobaadka dambe ayaanu ku kulmi doonaa halkan inta toddobaadka dambe la gaarayana haddii eebaha wada la yidhaahdo waxaan ka wada soconaynaa baraheena bulshada madasha furan fadlan haddii aad qayb ka mid a ku